kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada durdurka wararka dowladda federaalka Soomaaliya oo fashilkii ka soo gaaray deegaanka Raaskambooni kadib markan uu weecatay dhanka iyo gobolka Gado iyo ciidamo markaasi la filayo in dhawaan ay ka dejiso magaalada Baardheere sida qorshaha uu yahay dadka deegaanka Baardheere iyo guud ahaan madaxda gobolka Gado maxay ka dhaheen qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ay ciidamada ku geynayso gobolka Gado intaan guda galin waxaan ka codsanaynaa haddii ay tahay markii kugu horeysayna soo booqatay in subscribe-ka noo taabato muuqaalkaana like aad saarto si dad badan uu gaaro dowladda federaalka Soomaaliya oo toddobaadyadii u dambeeyay ciidamo aad u tiro badan ka dejisay deegaanka Raaskambooni ayaa halkaas kala kulantay fashil kadib markii ciidanka Jubbaland ay gacanta ku dhigeen qayb ka mid ah ciidamadii dowladda federaalka halka qaarna ay isku dhiibeen ciidanka markaasi dowladda Kenya oo xadka ay ka talaabeen halka ciidankii markaasi Jubbaland ay gacanta ku dhigtay ay diyaarad u saartay markaasi magaalada Muqdisho xilli hubkiina ay ka reebtay iyagoo faramaran dib ay ugu celisay magaalada Muqdisho halka intii kale ee Kenya markaasi isku dhiibtayna dib ay ugu celisay dowladda Kenya magaalada Muqdisho kadib wada hadal la xmaray madaxda ugu sareysa dowladda Kenya iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalka Soomaaliya haddaba dowladda federaalka Soomaaliya toddobaad kadib jabkii Raaskambooni haatan waxay u weecatay gobolka Gado oo markaasi uu qorshuhu yahay in ay xoog saarto halkaas isla markaana ay dhaqdhaqaaq ciidan ka bilowdo su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah haddii Raaskambooni oo ahayd meel markaasi muhiim ah ay dowladda federaalka Soomaaliya qorshaheeda ka socodsiin waday in gobolka Gado markaasi ciidamo ay geyso kadibna ay u qabtaan magaalada Kismaayo sidee macquul ku noqon doontaa waa su'aalaha ugu badan ee dadka haatan ay isweydiinayaan haddaba dowladda federaalka Soomaaliya waxa markaasi lagu dhaliilay in ay markaasi ciidamo geysay deegaano markaasi nabada oo aan looga baahnayn haatan ciidamo dheeraada magaalada Baardheere ayaa tan iyo saacadihii u dambeeyay waxa markaasi la soo warinayay in halkaasi la geenayo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya maamulka degmada Baardheere oo markaasi hoostaga Jubbaland ayaa waxa ay si cad u sheegeen in aysan ogolaan doonin wax ciidan ah oo ka socda dowladda federaalka Soomaaliya odayaal dhaqan iyo sidoo kale mas'uuliyiin ku sugan magaalada Baardheere ayaa waxa ay sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku soo fashilantay deegaanka Raaskambooni haatanna ciidamo ay keento magaalada Baardheere wax aan khalkhalgelin amni iyo sidoo kale xasarad aan ahayn in aysan ka abuureynin gobolka taa bedelkeena dowladda ay la laabato qorshaheeda ay markaasi sheegeen maamulka degmada Baardheere sidoo kale Jubbaland war ka soo baxay goor sii horeysay waxa markaasi lagu dhaliilay dowladda federaalka Soomaaliya waxaana maamulka Jubbaland uu ku eedeeyay dowladda Soomaaliya in haatan mar labaad ay isku dayso in markaasi ay xaalado amni darro in ay ka abuurto deegaano nabada oo ka tirsan gobolka Gado dowlad goboleedka Jubbaland waxay ku eedeysay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in wali uu wado kala furfuridda iyo qalqalgelinta amniga deegaanada nabadda ah ee Jubbaland xilli hore dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu fashilantay ciidankii ay geysay deegaanka Raaskambooni war lagu daabacay telefishinka ku hadla afka Jubbaland ayaa lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh iyo kooxdiisa in ay ka abuurayaan degmooyin ka tirsan gobolka Gado qalalaase amni oo keeni kara in amniga faraha ka baxo loona adeegsado saraakiisha ciidanka dana siyaasadeed degmooyinka gobolka Gado ay Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa mar kale isku dayayaan inay ka abuuraan qalalaase amni taas oo keeni karto in amniga uu faraha ka sii baxo maadaama saraakiisha loogu talagalay in ay sugaan amniga loo adeegsanayo dana siyaasadeed ayaa lagu yiri warka markaasi Jubbaland ka soo baxay war lagu baahiyay TV-ga Jubbaland ayaa sidoo kale lagu yiri ciidamadii loogu talagalay inay ilaaliyaan nafta maalka iyo amniga shacabka Soomaaliyeed ayaa markaasi Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa waxay u adeegsanayaan inay ku dumiyaan nidaam dawli ah oo dhisan mana ahan wax markaasi dastuurka dalka uu qabo ayaa markaasi lagu yiri eedaynta ka soo yartay Jubbaland ayaa markaasi ku soo aadeysay xilli dowladda markaasi federaalka Soomaaliya ay horey ugu fashilantay qorshihii ay ciidankan ku geysay Raaskambooni waxayna dowladda federaalka ay markaasi haatan u wareegtay dhinaca gobolka Gado oo ay doonayso in ay ka saarto markaasi gacanta maamulka Jubbaland
ma ahan markii ugu horeysay oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ciidamo geyso gobolka Gado si markaasi madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe looga faramroojiyo maamulka waqtigii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa xusid mudan in ay dowladdiisii ay ciidamo aad u tiro badan ay geysay gobolka Gado balse kuwaasna ugu dambeyn ay ku soo ilaatay xaaladooda in dib loogu celiyo magaalada Muqdisho iyagoo markaasi haba yaraatee wax isbedel aan samaynin dadka su'aalaha ugu badan ay isweydiinayaan waxay tahay maxay kaga duwan tahay qorshihii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ciidanka uu ku geeyay gobolka Gado iyo qorshaha haatan Xasan Sheekh Maxamuud siyaasiyiin iyo waxgarad Soomaaliyeed ayaa waxa dowladda federaalka ay u soo jeedinayaan in arrinta ay u bedesho wada hadal haatanna ciidamo markaasi diyaarada lagu daabulo in aysan markaasi wax wanaagsan ahayn xaaladana ay uga sii darayaan Jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalka khilaafkooda marka ka dambayso waa uu sii xoogeysanayaa xilli gacanka hadal uu gaaray inkastoo dowladda federaalka Soomaaliya looga adkaaday gacanka hadalka oo ciidamadii dhammaan ay geysay deegaanka Ras Kamboni laga saaray isla markaana Jubbaland ciidamadeeda haatan ay ku sugan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Rajaal Xamse Cabdi Barre waxa ay ku adkeysanayaan in Jubbaland madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe inay u adeegsanayaan awood ciidan wixii inta ka soo harana aysan cidna dhag u siin doonin haatan waxa laga dhursugayaa ciidamada markaasi dowladda Soomaaliya ay geen doonto gobolka Gado sida dadka deegaanka ay markaasi uga falcelin doonaan iyo maamulka markaasi degmooyinka gobolka Gado bal in ciidamada dowladda federaalka halkaasi la geeyo xilli ay xusid mudan tahay in degmooyinka gobolka Gado intooda badan ay ku sugan yihiin ciidamo Ethiopian oo markaasi la aaminsan yahay in qudhoodu aysan ogoleen in ciidan ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay tagaan qaybo kamid ah ee gobolka Gado sidan wararka ku heeno degmada Baardheer oo ay ku sugan yihiin ciidamo aad u tiro badan oo Ethiopian ayaa saraakiisha ciidankaasi waxa markaasi ay si cad u sheegeen inay la safan yihiin maamulka degmada iyo sidoo kale guud ahaan shacabka taasna ay la qabaan oo aysan ogoleen dhankooda wax ciidan ah oo dowladda federaalka ka socda oo diyaarada lagu daabulo in ay ka degaan magaalada Baardheer sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya waxa markaasi ay qorsheynaysaa in ay ciidamo geysa ayaa la yiri degmada Dinsor oo ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana la rumaysan yahay in ay uga gol leedahay labada degmo ay markaasi calaamadtay ee ah Baardheer iyo sidoo kale Dinsor in ay u dhow yihiin oo kaliya ama masaafo ahaan ay markaasi u dhow yihiin degmada Bu'aale oo ah caasimada markaasi rasmiga ah ee dowlad goboleedka Jubbaland qorshaha dowladda federaalka uu yahay in labada ciidan ay kala geenayso Dinsor iyo sidoo kale magaalada Baardheer in ay u qabtaan magaalada Bu'aale oo markaasi xarunta ugu muhiimsan ama ugu weyn u ah kooxda ururka Al-Shabaab ee ku sugan bartamaha Soomaaliya waxa markaasi la isweydiinayaa sida dowladda federaalka Soomaaliya xilli magaalada Muqdisho afaafkeeda hore ay joogaan ururka Al-Shabaab in ay ciidamo diyaarad ku daabusho taa bedelkeedna halkii ay ku xooganayeen ururka Al-Shabaab ay markaasi la wareegto sida ay macquulka ku tahay haddaba qaybta faalada noogu reeb dowladda federaalka Soomaaliya ma ku saxan tahay in mar kale ciidamo ay Muqdisho ka daabusho ay geyso degmooyin kale mase kula tahay in ay markan guuleysan doonto oo markaasi ay ka adkaan doonto madaxweynaha Jubbaland markii ama isku daygii labaad oo ay sameynayso fadlan qaybta faalada ee fikirkaaga noogu reeb